قرابة السلام عليكم وعلى السلام يا ساودنتين وآمنة موسى وهلية ودكسون نقطي رمضان كيدن كمقنات waxaa idin leeyahay ciid mubaarak kulligiin weli ciiddii waa nagu sii dambaysaa annaga waddankeena hadaa waxeedina abdheed gareeyo UK saaka waxaan ka baxnay lockdownka qaybta saddexaad waxaa naloo furay maqaayadaha oo awal furaa laakiin dibadda uun wax lagu cuni kari jiray waxaa la ogolaaday in gudaha wax lagu cuno meelaha kofeega sidoo kaleeto dadka inay ku kulmi karaan guryaha gudahooda laakiin 6 qofood ka badan aanay ku kulmi karin laba reer oo isqabana ay ku kulmi karaan bannaanka meelaha jardiinooyinka ah ama guriga haddoo beer gadaala leeyahay laba reer waa ku kulmi karaan gudahana waxaa ku kulmi karo 6 qofood oo dhex fadhiisan karo oo cunto ku cuni karo marka saaka oo ah maxay ahayd 17 bisha May sanadka 2021 sidaas ayaa uga baxnay qaybtii saddexaad qaybta afraad waxa kale oo ka ilaawa qaybta saddexaad oo la jiro waxa la fasaxay in la dhoofo laakiin waxa loo dhoofi karaa dalalka la siiyay maaragtay green light-ka ama la ogol yahay in loo dhoofi karaa laakiin looma dhoofi karo dalalka la saaray red light-ka ama la reebay in loo dhoofo marka intaas saaka nagu soo korortay annaga ciidna waa laga baxay waxa waaye dhibaatadii ka dhacday adduunka hadday soo gabagaboobayso qof walba waa iskaga farxaya halkan maanta waxaan ku bilaabayaa qaybta koowaad wax la yiraahdo saacadda qadada ama isdhiirigelinta saacadda qadada horena waa idinkugu sameeyey يا وايكنا عيد مبارك مركله أرجعنا واسكو أبشر بس دي رجالين ساعة قدادة أنا ساعة قدادة وحي إسو شيء كرنا إسو شاكنا هذا أكشوا ولدتك إسكو وقت ما قديان أنا ولي ما بقدين بهذا إذا شاف قدادة إذا عسيري عمل واحد مركا لكن اسكا قدادي اسكا ددو marka dhiirigelinta saacada qadada episode-ka ugu horeeya ama qaybta ugu horeeya maanta waxa kaga hadlaynaa ka faa'iideyso waqtigaaga sida waqtiga looga faa'iideysto kale qof walba waa og yahay waqtigiisa uga faa'iideysto laakiin waqtiguna hadda baraka ma balahaba adoo ku talagal 10 wax inaad qabato ayaad waxa arkaysaa inaad maaragtay طبعاً كيف حيابات هذا أفر كمية سوق بتا الحمد لله وأمالنتي سوداد وقتك بركة ماله يا وأنا وإحنا لوج الشاقة دينتنا وأنا لوج الشاقة قرآنك وأنا لوج الشاقة بركة ماله وقتك هذا وقتك بركة على لقى قاعدة مركا آخر السمن كسودة واد ضدك حشوت كان لقى قاعدة حياب بدنا الله الشاقة هذا تاكلي منه لكن وقتك بركة على لقى قاعدة وإحنا الله الشاقة كمية هاي وما ضد كان قربها جوجنا ما بكسي جرته هذا الربع إن أفر شيء سوق بسطة وعبحيسة waxaad soo qabay laba xab hadaad soo qabato alxamdulillaah waa laba bas khalaas waa dhamaatay waqtigu halkaas kaaga dhamaaday marka dadka gadaal nooga soo beeray marka la idin salaama anaga dadka inay soo bataan sugame iyo marka hore la ugalaa qodobkaygii maadaama ciidii laga soo baxay ramadaankiina la soo dhameystay ilaahay ajarkiisa hana siiyo waxaanu soo bilaabaynaa marka muuqaaladii aan isku dhiirigelinayna sidaa la ajligeed waqtigaaga ka faa'iideyso waaye maanta mawduuceena waqtiga shay looga faa'iideysanaa marka waqtiga kama faa'iideysan kartid haddaadan kala garanin wixii muhiim ku ah iyo waxaan muhiim ku ahayn kama faa'iideysan kartid waqtigaaga haddii aadan kala garanin waxa muhiimka ku ah naftirkooda say usii kala muhiimsan yihiin muhiimadda koowaad waa naftaada waxaa ku jirta halkaasi cibaadadii diinta waxbarashadii shaqadii wax kasta naftaada soo galayaan muhiimadda labaad waa caruurtaada bari waxa jirta anigu aan aaminsanaa muhiimadda koowaad inay caruurta yihiin laakiin markii dambe waan isa saxay muhiimadda koowaad caruurta maaha caruurta waxba looma qaban karo haddii aad adiga naftaada wax u qaban marka naftaada wax ka dhigto ilmahaaga aad difaaci kartaa
inay kaa baylahaan ka ilaalin kartaa, inay kaa xumaadaan ka ilaalin kartaa, inay kaa dayacmaan ka ilaalin kartaa. soo daad naftaada waayo muhiimadda koowaad. marka wakhtigaaga ka faa'iidayso. marka ugu horeysa naftaada ka hormare wax walba. naftaada markaa ka hormarinaysid wax kasta waxaa la socdo inaad naftaada edab u yeeshid, dishibliin inaad ku samaysid naftaada. maxaa yeele qof weynaa tahay oo qaangaara oo mas-uulah, mas-uuliyaddaas ku saaran naftaada kaa saaran tahay, wixii aad mas-uul ka tahay kaasii saaran tahay, haddana waxay kaasii saaran tahay bulshada aad ka tirsan tahay, meesha aad degan tahay, xaafadda aad degan tahay. mas-uuliyadda heerba heer waay, ranking waay, waa kala sarraysaa. kala sarrayntaas ay kala sarrayso haddii adiga horta naftaada hoose aadan waxba u qaban ama aadan ka fikirin, cidna wax ma u qaban kartid waayo macnaha. marka kow naftaada priority ka dhig, wakhtigaaga ka faa'iidayso. waxaa ka wadaa marka ugu horeysto naftaada ka dhig muhiimadda koowaad. waxa aad qabanayso intaadan qabanin horta fariiso, fiirso. hadalkaad dhehayso intaadan dhihin ka fiirso. ma faa'iiduu keena mase khasaaro? dagaal haddaad galaysa ka fiirso. dagaalkan haddaad gasho ma ku soo guulaysan doontaa mise waad ku sii guul daraysan doontaa? sababtaad dagaalka u galayso muxuu yahay? waa inaa ogaato. iska galmaha wax kasta. naftaada muhiimad sii. naftaada enerji badan ayay ku bixinaysaa inay noolaato. maxaa qabataa subaxii markaa soo kacdo ilaa habeenkii markaa seexanayso? shalay waxaan qabtay hadday laba wax ka qaldanaayeen oo laba wax ay si kale iga noqdeen, waa inaan maanta saxaa labadaas waxyaabood. maanta inaan saxo waayo. shalay iga qaldameen soo maaha? haa, foraten baan gala twice, laba jeeraa foraten ba gala soo maaha. maanta inayna foratenbada igu soo noqon waaye. wixii aan qalday inaan shalay waxaan qalday maanta inaana dib iigu soo noqon waayo. qofka aqliga leh ee aaqilka ah ee maskaxdiisuna fayowdahay, ee jir iyo maskax labadaba ka fayow, kaasaa laga fila karaa. haddoona ma haysto, because asaga ma haysto. qofka hadduu fayow yahay oo jir iyo maskaxna ka fayow yahay ma haysto, marmarsiya ma haysto. qofka waa loo cudur daari karaa hadduu xanuunsan yahay. laakiin xanuunkaas loogu cudur daarayo xataa waa inuu noqdaa xanuun lala tacaalay oo la ogyahay heerka u maraayo oo looga garaabi karo. laakiin dadkan burburinaya waxaa rabaan ka sheega waa soocayaha, hadhowna waa xanuunsanaha, isku hoos qaraa. taas naftirkeeda naftaadana uma aadan daryeelin, wakhtigaagana kama faa'iidaysa. marka ma doonaya inaan qodobka ka baxo maadaama script ii qoran ama qoraal ii qoran aan idin akhrinaynin. moogtahay wixii maskaxda ku haya. hadda intaana example lifeka intaana soo geli waa kasoo fiirsada aniga. maanta inay isniin tahay oo isniinta oo ciiduhu dhammaadeen aan dib u bilaabi doono motivationkii. taas mar horaan ogaay, ramadaanka ka horaan sii diyaarsaday. laakiin waxaan sheegayo wiigii horaan sii diyaarsada intaan la ciidan. anoo og waxaan ka hadli doonaan soo galay. berri waxaan ka hadli doona waa ogahay. cawada haddaan soo galayo waxaan ka hadli doona waa ogahay. maxaa yeelay wakhtigaygii ayaan qorshaysanaa. salaada duhurkan soo dukada, casirka waa ii dhiman yahay. salaada duhurka anoon dukan idinla warramow mahaayo. maxaa yeele wakhtigayga aan qorshaysanaya. wixii hadda idin kala hadlaaya la waa wakhtigayga ayaan qorshaysanaa. priority aan siinaa inaan idinka idinla hadlo, inaan salaada ilaahay u dukado oo ilaahay hortiisa iska xaadir 5 jeer maalintii. taasaa muhiimsan soo maaha? taasaa horta soo guta. waa soo qabaysta, waa soo weyse qaad, taasaa soo guta. kabacdi idinka idin dhiman waa idinla hadla. wakhtiga yaroo firaaqada ahay 30 daqiiqa ka badan idin lama hadli doono, ama 45 daqiiqa haddoo kor u boodo waa idinka tagaa. haddana hawsheedaan qabsahaa. saas waa macna. marka wakhtiga waa seef intuunan ku xiirin ka faa'iidayso. hawl aad hadda qaba karto ood ogtahay inaad qabato muhiimna u ah noloshaada, berri haw dhiganin. ma hubtid berri inaad noolaanaysid. berri inaad noolaanaysid ma hubtid. saacadda soo socota inaad noolaanaysid ma hubtid, ma ogid. you have no idea.
nolosha priority kala samayso hadalkan ku bilaaba naftaada kow priority waaye muhiimadda koowaad naftaada waaye waxaa samaynayso waa ka fikiraysaa waxaa involved ku noqonayso ood la falgalayso waa inaa ogta waa kasii fiirsahe bini aadanaa nahay wax kasta ma ogaa karno ducada ilaahay haddana meesha kama maqna ilaahayow rabbi tawfiiqdana waafajo maxaa loogu ducaystaa way loogu ducaystaa ilaahu tawfiiqdana waafajo tawfiiqda maxaa laga wadaa wadada toosanaa laga wadaa wadada toosa aa laga wadaa ilaahu wadada toosa i haleeshay aa laga wadaa ilaahu tawfiiqda igu du waxaa og tahay in aanay faa'iido hadhow ku ahaanin ma ka qayb galaysid luma ku lug yeelanaysid qof qoorta kaa haysato oo kugu qasbaysa inaa waxaas ka qayb gasho ma jirto xumo aa ujeedo ha buunbuunina ma buunbuuninaysid waa ka haray maxaa yeele muhiimadaha naftaada ma ku jirto inaa xumaha buunbuuniso maxaa kaa soo galaa dembi adduun qasaare aakhiro dembi adduun iyo mid aakhiro qasaare adduun iyo mid aakhiro aa kaa soo galaya inaa xumaha buunbuuniso soo waay waxaada ka qayb geli karin wixii aadan suubi karin ma laguugu bushgarayn karaa qof awoodiisa qof adiga inuu inta ku riixo haddaa ogtahay waxaas inay faa'iido ku yihiin adiga caajislay tahay haa qofka taladiisa waa la yaala laakiin waxaadan raalli ka ahayn ma ka qayb galaysid you want to get involved so waqtiga maanta waxaan ka hadlayna waxa waaye waqtiga saa uga faa'iidaysa laheyd oo number 1 naftaada madnaan u sii laheyd ma bajiraba muu malaynaya inuu jiro ma jiro waqti kuu soo heraaya intaad wixii aa qorshaysato dhan aa qabsato kolley aniga 21 sanaan qurba ku noolaha ma arag mar kasta wixii aan qorshaysto oo qabyaah ayaa saacadda iga dhammaataa aniga idinka xaggiinna ma ogi laakiin aa ku jirto hadda saacadda iga dhammaato wixii aan rabay inaan qabto berriyan haddana u gurahan ku daraa haddana halaya waxaan berri qaba lahaa ayaa qaar ka tagi doonaa waa oga laakiin wixii waa in la qabto qorshihii waa in la qabto naftiina ka fakara weliba bishaan may aan ku jirno waa mental health month waaye bishii xanuunada dhimirka badqabka dhimirka xanuunada ma aha caafimaadka dhimirka qof walba ma waalno haddana qof walba ma fayoobo believe me in aad oo gasho ama barashar nololeed inaad gasho ayaa kuugu filan in caafimaadkaaga maskaxda oo qalqalgalo adiga maxaa barashar u qaadanaya waayo barashar u qaadanaya ha qaadani barashar dadka waa wada siman yihiin kalama aabbaya hooya fiicna kalama dhalasho fiicna ilaahay intuu karaameeyey qur-aankiisa uu ku sheegay intuu uuma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ugu karaamo badan adiga ummadiisiyaa tahay soo maaha haa diintiisiyaa rumaysa walle maaha haa okay haddii aad rumaysay waa inaad wixii lagu yiri adoo ku dadaalaya ha kaa kala fakadaan hadday rabaan dadka ku dadaal inaad saxdo maxaa waaye marka waxyaabaha aa isticmaali karto markaad naftaada qorshaynayso horta kulli waxaa qabtaa qofkii wax qori kara waaba qoraya qofka aan wax qori karina calayhi salaatu wasalaam qofkii aan wax qori karina ma qori karo codba ku duuba haddaa rabto mobayla oo casriha wadataan kulligeen horta soo qorshayso awadii magaad seexayso sii qorshayso tomorrow maxaa qabanaysa u kala horeeyaan dhakhtaraa ballan la leedahay muhiim waaye ma goyhayst cunugaa iskool ujeedi rabta muhiim waaye ma goyhayst guur suuqaa ka soo adeega laheyd muhiim waaye ma goynayst waxyaabaha muhiimka iyo xilligaa qabanayst suurtagalka ta waxyaabaha kale oo dhowr bilood ama dhowr wiig qaada kara inaad qabato iyaga deadline u samaysay maalintaas waa maalinta kama dambaysta ah oo aan rabo inaan waxaa qabto saaka waa soo kacay aniga biilasha guriga qayb ka mid ah oo aan u arkayay inay lacag badan igu jaaj garaynaa aan la hadla laba hay-adood waa is afgaranaa aniga ayaga because muhiima iyo ii ahayd haddii kale cawada dhanaa wadnaha bug i dhahaa biilkii haddaanan bixin
kama aamusi karo serviceka hadhow la iga jarto oo gaal aan la deganahay oo idhaho naagtan ma rabto inay wax bixiso xoogay rabtaa inay wax ku hesho haya yaa ii cida marka soo kacay waa quraacday exercise sameeyey waxbaa akhristay sidaas wax walba samaynaayo horta kow markaan soo kacay salaada tukaday dib hurdo kuma noqon dhowr iimaylaan diray dad oo tokistiya iyo soo diray xalay intaan hurdaayay ama intaan jiifka isku diyaaray u jawaabay beelashaasaa la hadlay waaweyse qaata duhura haddana dukaday idinkaa idin la hadlow haayaa halahaasaa marow haayaa weli walaxaa ii dhiman ilaa cawad aan ka seexdo muga aniga cali iyo caasho iyo jaamac iyo faarax iyo qowdhan maan tabar u haayaa maya tabar uma haayo waktigayga waa qorshaystay halaha aan ku talagalo lou ku dhammaahayaa bas khalaas marka dadoo waxay samaynaysiin soomaaliya rag iyo dumar siiba dumarkaan la hadlaa badanaa dadka dhibta ugu badan oo dhinaca nolosha u nugulna annaga waayo dumar haddaan naha annaga ilmaheenna waayo dadka badanaa waktiga ku bixiya wax aan iyaga tabartooda ahaynna annaga lee waayo runa idin sheegaa bas aniga idinka le idinka tirsanaya mogtaa meel kale kama imaan ku bixiya marka waktigiina fadlan ku bixiya nimanka saana yeelaan ka baxa waxaas ka baxa idinka nin ma tihiin yaa idinka nin ma tihiin soo daad nin wuxuu suubaay adiga maba lagu saarinba laguma saarin adiga prioritiga naftaada waaye naftaada u jihaatag waxaad naftaada ku bixinayso isaa naftaada u maamulayso isaa noloshaada u maamulayso adiga fakar nin iyo wuxuu qabaaya iyo nimanka waxay aadaan xaagay aadaan maxay taa fadhi ku diriiqda waa ognahay inay aadaan oo dab ka shidaan waa ognahay wallaahi anaka nin maana maxay naga qusay waxay naga muqusay aadii taada daryeel especially gabdhaha kaligood ilmaha korinaayo ama lagu dayacay ama adoogyo 20 jir oo meelahan laafiyo haayo adiga adoogaas laafiyadiisa waxba ha ka masayrin dhib usoo ku dambeeyaa believe me way aragniman ka hadlayo yani ninka ilmihiisa dayaca asaa dhib ku dambeeyaa waxa la gaara heer ilmihuna koraan islaantuna ka ilbaxda abuuskiisa iyo dayacaadiisa walax kale ku darsadana naagtaan aanay lahayna la gaara salaamu calaykum oo dawdhaho xataa inta saas u dayshib iska dhihi kartaa kuma qasbana salaamu calaykum salaam ma dhahdo heerkaas la gaara soo daad waxba nimankan ha u boodina hadday soo hanuunayaan ilaahay ha soo hanuunsho ilaaha wax noogu daray annaga iyaga alla wax noogu daray oo ubad naga siiyey oona u dhaxna soo maaha haddii soo hanuunaya soo hanuun laakiin gabaryaha adee waktigaaga ka faa'iidayso noloshaada ur u bixi roobaaba imaado waayaaba ole waa fadhaa intaa ka dhambeyn ya noloshaada ka fakar naftaada ka hormari wax kasto maxaa yeelay adiga markaad baylahda ka baaqsato oo aadan dayacmin ilmaha wax u suubi kartaa ilmaha bartood isku dhex walaaqanta waxay suubeen iikana qalaas waa ku daayeen social service-ka imaa muka dambe labadaba beri markaad iskaalsa kala gaara ku geyso meesha iyo shaarku leetaga wasakh ka ah ilaa adiga yaaba wareersane dhardhaqoy baa tabar u haysaa ama ilmaha kala cuntada la soo siiyo ku boodo cunuga intuu ka yimid horta intuu joogi jira la yaraa gurigooga moo ka soo baxa hadaada naftiina gabdhow idinkaada la hadlaa naftiina haddii aadan ka dhigina muhiimadda koowaad wax kasta oo kale adduunkaa isku dhacaya u fiirso meel kasta nin kasta markaa meel qudba la istaago wuxuu leeyahay haweenku waa laf dhabarka bulshada asoo raba inuu idinku benguuro oo siyaasadiisa iyo kursigiisa inuu idinku tago raba lacagta usoo aruursin laakiin hadalkaas meelow runka yahay waa sax laf dhabarkii bulshada tiin dumarku waa laf dhabarkii bulshada waa sax laakiin laf dhabar uma tihiin inaad oo hebelow kursi raba u sacbiso oo hebelow inaad qabyaalad ku taageerto asoo qaldan
oo hebelow inaa maxay ahayd toonay aad isgarab taagto oo hebelow inuu lacag kaa gurto oo kursiga ku fuulo no 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 that's not your priority muhiimadaada nolosha ma aha taas muhiimadaada nolosha waxbaa inaa adiga naftaada ka fikirtid warraaba igu imaanayo waa idin soo gabagabaynaa intaana dhibcuhu soo waaweynaa yaa marka ciid mubaaraga mar kale idin leeyahay saanaa usoo geli haynaa duhur kasta habeenkiina waa ku soo noqonaa waxaa dib u bilaabaa Aamina Rights School oo pageka Aamina Media Productions kala soco doonteen shaqada ogeysiisar haddii aan halkan ka bixiyo hadhowna waa soo qori doonaa gabdhihii counselinka uu socday iyo coachinka idinkana waataa idin ballamiyey isniin wixii isniintan ma aha marka waa ii suurtageli weyda isniinta ka dambaysa isniinta soo socoto 24 bisha ayaa idin soo sheer garaynaa meesha abooyinka ka samaysanaysaa hadda wixii ka dambeeya gabar telefoon bookin loogu samaynayo waa jiri doontaa telefoon cusub ad wici doontiin iyo dad cusub ay la shaqaynayaan waa jiri doonaan ya marka coachingkii iyo counselingkii asagana wuxuu isku bedelay company inaan la shaqeeyo oo company ahaan ku shaqeeyo isku bedelay saa darteed ma anfacayso inaan qof walbaba gooni ugu bookin garayo qof walba asaa bookin garaysanay gabdhihii uu socday la talinta u socotay halkiina idinkaga bilaabma oo ay u hakatay ramadaanka daraadiis halkiina idinkaga bilaabma marka waa inoo 24 hawshaasina iyo inticaawa aan ka soo galayno oo aan ka hadli doono insha Allah internet footprint ama raadadka internetka qadaam wax kasta internet yihiin raadka internetka caawa isu sheegi doona sida raadkeena haddii aan meel la garayno sa loo fahmaayo inaan adiga tahay xasan naata xuseen naata faaduma inaata caasha inaata marka internet footprint raadadka internetka caawa ka hadli doona insha Allah tani kulan dambe waana idil assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh